أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال هذا جنرال كسليكا وحمات لكم كشرح يا biology examination أي تا امتحان كهرباء قلمي إلى إنشونات لو كنا تكودا and instruction كهواي answer all the questions in the answer booklet وحاول جاوبتها مركا سؤال كجاوبتها أو إذا تيسير كا section A وحنا قرن select the most appreciate juice waxaa inta badan lagu qiimeeyaa lamaqas of the given Lucy alternative waxaa lagu sharxaa ama lagu siinaa 40 dhibco. Okay, qaar ay ka shaqeysan yihiin waa soo fududeeyay. Waxaa la maqaa the nerve that arise from the brain kaasoo kasoo ifbaxaya la markaasi maskaxda are known as waxaa loo magacaabaa waxaa la ku spinal cord, spinal nerve ama cranial nerve ama waxaa la maqaa central nerve. Waxaa galaysaa ujeedid waa central nerve. Number 2 waxaa la markaa the nerve system that is controlled by the hypothalamus is said to be macnaha neerfaha kaliya kaasoo ilaaliya hypothalamuska waxaa loo magacaabaa la markaa voluntary maya sensory maya ay automatic maya ama waxaa la peripheral waa waxayna qana markaa automatic waa si automatic ah. Okay, mid saddexaad waxaa la markaa using the diagram below indicate the part of the neuron that receives information from the other neuron macnaha waxa la adigo isticmaala diagramka qaybta hoose sawirka waa inaad ku muujisaa lamkaas qaybta kaliya neuronka ah that kaasoo receives taasoo helayso information warbixinta ama akhbaaraadka from other neurons taasoo ay ka helayso markaasi neuron kale waxaa la markaasi hal miya laba miya saddex miya afar miya soo jeed waxaan oo gashay marka saddex aan dhe waxaan oo gashay afarta aan oo gashay oo lambar D ah lambarka afraad. Using the diagram below, answer the question that follow. Hala markaasi a girl was involved in an accident. Gabar ay waxay ku lug lahayd inay gasho shil and the X-ray alamka showed that the part of the brain waxaa la markaasi raajadan waxay ka soo muuqatay qaybaha maskaxda indicated by the arrow taasoo ay ku soo muuqanaysaa markaas filaaraha was damaged iyadoo ay ku dhaawacaan due to ay ku wacan tahay the trauma la markaasi what effects ama waa maxsaameeda with this alamkaas girl most like a gabadha most inta ugu badan likely ay ku nasiibad ama ay ku jeceshahay waxaa la markaasi partial or ama complete memory loss ama qaybta dhexe partial loo yaqaan maskaxda qaybta meesha iskugu imaanayso loo yaqaan partial or ama complete memory loss si dhameystiran markaas maskaxda inay xasuusta ay lumiso biyo waxa la body temperature fluctuation macnaha heerkulka jirka oo kale si waxa lahay trouble in maintaining balance waxaa la markaas in maskaxda ay joogtayso rapid breathing qof inuu dhibo neefta waxaa galaysa markaa waa trouble in maintaining balance oo ah C. And lambar shanaad waxaa la the primary infection of the myelin is 2 waxaa la markaas primary infectionka waxaa lagu magacaabaa markaas produce vitamin D inay yareyso vitamin D ga waxaa la markaas produce sebum inay yareyso la markaas sebumka ama waxaa la markaas waterproof the skin in biyaha maqaarka ku jiraan oo kale waxaa la markaas D waxaa la provide protection again ala markaas the sun's UV macnaha inay ka hortagto la markaas qoraxda la markaas qoraxda UV inay ka hortagto waxaa la markaas lambarka shanaad Ali was injected with a penicillin through waxaa la cali wuxuu diiday la markaas penicillin you did the skin using inuu isticmaalo hypodermic la markaas needle macnaha inuu isticmaalo la markaas hypodermic the first in documentary structure la markaas throat which is a needle passed was waxay naqnaa markaa caalamka surgical layer miya epidermis miya ama waxa la sii ah papillary layer ama waxa la di hypodermis waxay naqnaa markaa soo jeedid biyo naqnaa epidermis. Lambarka 7 waxaa la markaa in humans all are the function of the skin except ana dhammaan bini'aadanku shaqooyinka la markaas marka laga reebo maqaarka waxaa ka naqnaa markaa respiratory gas exchange ana qof neeftiisa in isbedesho hawada ka qaadanaya gaaska in isbedesho waxaa la ma biin waxa uu lahay waxa la markaas preventing waxa la markaas unnecessary la markaas water loss si la marmaan ah in biyaha la markaas ay ku lumaan
waxaa excretion oo iska saarto regulation of the body temperature inay joogtiso alamagaas heerkulka jirka waxaa galaysa marka air galayso ah respiratory gas exchange ay galayso. And waxaa number a type of bond that is classified as irregular bond is known as maxaa marka xaalada nooca lafta taasoo ay ku muuqan lagu kala saarayo as irregular bond is known as waxaa lagu magacaabaa leg bond miya lafta lugta miya xaala biyo waxaa lahay vertebrae miya si waxaa lahay skull miya waxaa lahay wrist bond waxay noqonayaan marka biyo ah vertebrae. Lambarka 9aad waxaa la magacaas why which of the following is not a part of the appendicular skeleton waxaa la midkaan soo soco midkee baan ka ahayn appendicular skeleton midkee ka ahayn marka waxaa la ku shoulder miya hips miya waxaa la feet miya ama skull waxay noqonayaan marka skull noqonay. Lambarka 10aad waxaa la magacaas dhasha meesha release in laga soo de exercise la magacaas water that helps the skin to regulate body temperature in wax laga soo deeyo magacaas heerkulka jirka inay joogteyso ay waxa loo yaqaanaa sweat gland miya ay waxa la magacaas sebaceous gland miya ama oil gland ama waxa la magacaas dio ah waxa la magacaas ceruminous gland waxana qana magacaas sweat gland marka ileen dhacaanka carabku waa marka si joogteen ama. Number 11aad waxaa la Ali has eaten a bread for breakfast Ali wuxuu cunay alla markaas quraacdii rooti shiala magacaas the glucose level of his blood will waxaa la magacaas glucose-ka waxay noqonayaan marka jirkiisa waxay noqon doontaa waxaa increase in ziyaada miya biyo waxaa lahay degrees hoos u dhacay maadamiya si waxaa la remains the same in ku harto isku mid ah diin waxaa lahay decrease and increase way kordhay weena yaraan waxay noqonayaan markaasi inaan qof haduu baahan yahay kale jirkiisa waxa ku jira wax haduu cuno kale wax ku ziyaada mo waxay noqonayaan markaas waa increase waa. Lambarka 12aad the hypothyroid hormone is secreted by waxaa la magacaas A pituitary gland B adrenal gland C thyroid gland D waxaa la magacaas parathyroid gland waxaa la magacaas waxay noqonayaan marka C noqonayaan thyroid gland noqonayaan. Lambarka 13aad waxaa la magacaas the throat outer membrane covered the brain and the spinal cord of vertebrate scholette waxaa la magacaas B the dura mater A waxaa la the dura mater B waxaa la the pia mater C waxaa la arrowroot mater D waxaa la cerebrospinal fluid waxay noqonayaan markaasi A the dura mater. Okay, number 14aad if one strand of DNA is 5 ATCGTT AA GCGA GTCA waxaa la magacaas 3 the complementary strand would be macnaha waxaa noqonaa qaabka marka waxaa noqonaa standardka waxaa noqonaa magacaas waxaa la magacaas 3 oo xarfaan ay wataan ilaa 5 waxaa la hadana B waxaa la 3 xarfahan ilaa hadan 5 ulaa waxay kala duwan marka 3 iyo xarfaha waa la kala fiirinaa marka xarfaha si u qorayn waxaa la magacaas mid kale waxaa noqonaa 3 ilaa xarfahan hadan 5 ulaa waxaa galaysa ilaa kul xaal mid ay galayso. Lambarka 15aad a black ox BB was crossed with a wild cow BB identify the resulting phenotypic ratio waxaa la markaas waxaa la 0:1 and black to white waxaa la B waxaa la A:1 and A:1 black to white C waxaa la 1:0 black to white D waxaa la 3:1 black to white waxay noqonayaan markaasi B noqonaya 1:1 black to white. Lambarka 16aad waxaa la markaasi according to Mendel the crossing between purple flower BB and the white flower PP resulted the F1 generation becoming natiijada macnaha waxay noqonaysaa wallahi waxaa lahay all white ama in cadaan noqdaan B waxaa lahay
all bubble. C waxaa u lahay 3 bubble and 3 bubble ratio 1 white. D waxaa u lahay 1 bubble ratio 2 white. يعني نقنا مركا B نقنا all bubble نقنا كليات. Lambarka 17. Which of the following regions in Somalia do you expect to find the greater species diversity? waxaa markaas A galgudud, B banaadir, C bari, D lower juba. waxay noqonaa marka D oo ah lower juba. Lambarka 18. The group of organisms that contain the largest estimated number of species are A birds, B plants, C insects, D mammals. mammals waxaa loo yaqaanaa naasleyda xayawaanada. waxaan markaas C naqana insects ah. Lambarka 19. Study the figure show below. Mention the part of the ear that is responsible for hearing. macnaha waxaad sawirtaa la markaasi egta qaybteeda taasoo ay ka mas'uul tahay qaybta maqalka oo kale. waxaa u lahaa kow A waxaa kuu qoran marka semicircular canal, B waxaa u lahay cochlea, C waxaa u lahay tympanum, D waxaa u lahay ear canal. waxay noqonaa markaas B noqonaya jawaabta. waxaa la marka lambarka 20. Farah whose blood